xafladan oo hanaankeeda dhicitaan si diiran loo soo agaasimay ayaa ujeedadeedu ahayd xil u kala wareejinta gudoonkii hore ee jaamacadda Burco iyo gudoonka cusub ee jaamacadaasi waxaana munaasabadani ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer boorka jaamacadda Burco gudoomiyaasha jaamacadaha gobolka Togdheer ganacsato iyo marti sharaf tiro badan gudoomiye ku-xigeenka boorka jaamacadda Burco Faarax Xarigle oo munaasabada ugu horeyn ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo martay jaamacadda Burco waxaan ku bilownay 70 baan ku bilownay oo meel laba maqsina midna yahay xafiiskii midna yahay ardaydii lagu bariyay imkana de jaamacadda weyn indhiina waad ku aragtaan waad si wacan baad u aragtaan laba nin baan imka jeclaanay inaan u saaro oo iyaguna way su'aalaha la weydiiyay bariiro waxa la yiri oo dhar adeedadan waxba ogeyn war nimankan professorada ee imka la doortay ma dawladda idin keentay oo idin soo recommend gareysay ma yaabaan boorkayga recommend gareeyay oo soo saaray gudoomiyihii hore ee jaamacadda Burco ee maanta xilka wareejiyay Professor Salebaan Dirir Cabdi ayaa si qoto dheer u dul istaagay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu hayay gudoonka jaamacadda Burco jaamacaddu maanta mood iyo nool marka la isku kiciyo ama shaqaale ha noqoto ama qalab ha noqoto ama wax kasta ha noqotee waxa weeye wasi loo sheegado warwar badan lagama qabo in cid waliba shaqadeeda ay qabsato midnimo iyo habraac yani la raaco systems baajira gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Burco ee maanta xilka la wareegay Dr. Ciise Nuur Liibaan oo madasha ka hadlay ayaa shacabka gobolka Togdheer ka codsaday in ay xilkan ugu soo duceeyaan nin aad u soo shaqeeyay oo bahasha heer sare soo gaarsiiyay ayaa iga horreeyay meeshana fadhiya marka waxa la yimaar aad ka kacay adoorka fariisay waan imka taaganahay marka hadhow iyo qablade sanawaad hadii la haydaayo inaan faani doono waa laga yaabaa xoogeen hadii sugayno waynu jihayn karaynaa that's the only thing we need marka waxaan filayaa Burco inay soo celiso hawshii ay momentumkii ku shaqeynaysay xakeeliya aan mujtamacaadkan ugu jira iyo intii dibadda iga arkaysaba aan ka codsanayaa ama aan weydiisanayaa waxa weeyaan in la noogu duceeyo xilka culus la noo dhiibay in Ilaahay nagu gargaaro gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe oo gabagabadii madasha ka hadlay ayaa duco iyo dardaaran u jeediyay gudoonka cusub ee jaamacadda Burco Professor Salebaan iyo ku-xigeenkiisaba wax wanaagsan bay runtii qabteen muddadii ay gacanta ku hayeen halka ay soo gaarsiiyeen iyo halka ka soo qaadeen waa muuqataa amalkaas iyo shaqada wanaagsan ee ay soo qabteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka uga daro waxaan kula dardaarmaynaa inaan halka kaga tagin ee wixii talooyin iyo tusaalooyin ee ay hayaan inay siiyaan maamulka dambe oo ay noqdaan mustambeed ay jaamacaddu yeelato sidoo kale maamulka cusub waa soo dhaweynayna Ahmed Salebaan Arab Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco